sida loo sameeyo 10,000 oo dollar bishii arday ahaan mudanayaal iyo marwooyin. Qof kasta wuxuu rabaa inuu ogaado sida loo sameeyo 10,000 oo dollar bishii. Dhibaatadu waxaa jira macluumaad badan oo khaldan, taas oo u muuqata mid ka sahlan sida dhabta ah. Maanta waxaan doonayaa inaan kala qaybiyo 3 qaybood ee ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad diiradda saarto si aad u gaarto yoolkan. Waxaan sidoo kale ka tagi doonaa isku xirka sharaxaadda fiidiyowgayga ugu caansan, halkaas oo aan ka wada hadlo 7 ilaa 8 nooc oo ganacsi oo online ah oo waxtar leh. Fiidiyowgaas ayaa kaa caawin doona inaad ogaato midka kuugu fiican sanadkan. Raadso gaadhiga saxda ah. Talaabada ugu horeysa waa in la helo habka saxda ah ee dakhli loo abuuro baabuurkaaga. Waxaad u baahan tahay hab weyn oo kugu filan si aad u hesho 10,000 dollar bishii, laakiin maaha mid khatar ah oo aad lumiso wax walba. Aan kuu sheego waxa aan shaqaynayn ganacsi. Ganacsato badan ayaa ku iibin doona riyooyin been ah, laakiin runtu waa lacag marka aad lumiso. $1,000 in lagu badalo 10,000 oo dollar ama ka badan sanad gudihii iyada oo loo marayo ganacsi waa mid aad u adag. Taa beddelkeeda, diiradda saara inaad bilowdo ganacsi online ah oo caato ah oo leh qulqulo lacageed oo sareeya. Tusaale ahaan, ganacsiyada ku salaysan adeega sida maaraynta Google Ads ee sumadaha ee Commerce ama u samaynta wax ka kooban qaabgaaban ee warbaahinta bulshada waxay u baahan yihiin maalgashi yar oo horudhac ah, waxayna siiyaan macaamiisha qiimo dhab ah. Si aad u guulaysato, ganacsigaagu wuxuu u baahan yahay qiimaha sare ee la dareemay. Macaamiishu waa inay u arkaan adeegaaga mid u qalma bixintan ilaa 3,000 oo dollar bishii. Leverage dakhliga ku qiyaas adiga oo dibadda u soo saaraya ama dhisi koox si ay u maareeyaan keenista inta aad diiradda saarayso korriinka. Tusaale ahaan, waxaad maamuli kartaa wakaaladda thumbnail-ka YouTube, ka shaqaalaysiinta naqshadeeyaasha gobollada qiimaha jaban si ay u abuuraan thumbnails inta aad maamulayso macaamiisha iyo hawlgallada. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad ganacsigaaga ka sarreyso waxa aad kaligaa gaari karto. 2. Fidi waqtiga. Waa tan xaqiiqada. Dhisidda 10,000 oo dollar dakhli bishiiba waxay qaadataa waqti. Baraha bulshadu waxay abuurtaa rajooyin aan dhab ahayn iyagoo soo jiidanaya guusha habeen dhaxa. Aan caddeeyo, haddii aad 1,200 oo dollar bishii ka samaynayso ganacsi online ah 6 bilood kadib, waxaad samaynaysaa cajiib ah. Kobaca inta badan waxa uu eg yahay xariiq fidsan ka hor inta aanad ku dhicin boodboodka jibaarada. Markii aan bilaabay, waxay igu qaadatay 3 sano inaan ku garaaco 10,000 oo dollar bishii. Si degdeg ah ma u samayn kartaa dhab ahaantii, laakiin xitaa haddii ay qaadato sanado, waa u qalantaa. Diiradda saar mustaqbalka fog, hana joojin marka horumarku u muuqdo mid gaabis ah. 3. Joogtaag. In la gaadho 10,000 oo dollar bishii waa bilow. Caqabadda dhabta ah waa in la sii joogo oo la dhiso hanti mustaqbalka fog ah. Dad badan ayaa la halgama sidii ay u maamuli lahaayeen una kobcin lahaayeen dakhligooda marka ay gaaraan yoolalkoodii ugu horreeyay. Baro mabaadi'da lacag duug ah si aad u barato sida loo ilaaliyo oo loo dhufto hantidaada. Mid ka mid ah fikradaha muhiimka ah ayaa ah horumarinta aasaaska dhaqaale. Tusaale ahaan, marka aad gaadho 10,000 oo dollar bishii, waa inay noqotaa waxa kuugu yar. Wax kasta oo ka yar ma dareemi doono in la aqbali karo. Taasina waxay kugu dhiirigelin doontaa inaad ilaaliso oo aad koraan. Fikirka ugu dambeeya, guushu waxay u baahan tahay dadaal iyo dulqaad. Ku bilow doorashada qaabka ganacsiga saxda ah. Deji rajooyinka dhabta ah oo joogto ah. Xasuusnow, dhisidda maalka maahan in si degdeg ah loo hodmo. Waxay ku saabsan tahay abuurista dakhli waara waqti kadib. Meel fog baan kaa xididaynayaa. Hadda tag tilaabo.